magaalada Doobley gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa maalmahan ay ku tilaabsanaysay horumar kala duwan gaar ahaan bilicda magaalada oo kor u soo qaadantay iyo ganacsiga magaalada si xawli ah u socdo maadaama ay tahay magaalada Doobley magaalo saaran xuduudda kala qaybisa labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya waxaana ay istiraatiiji u tahay ganacsiga labada dal waxaan saaka mikrofoonka la dhax qaaday suuqa magaalada Doobley gobolka Jubbada Hoose waxaana si toos ah u socday ganacsiga magaalada iyadoo halkaasi aan ku wareystay qaar kamid ah ganacsatada suuqa waxayna ka warbixiyeen ganacsiga guud ee suuqa magaalada Doobley gobolka Jubbada Hoose magacaygu waa Nuur Cilmi Warfa hadaan kaaga warramo xaaladda ganacsiga ee magaalada Doobley ma sha Allah ganacsigu iska fiican yahay aad u fiican yahay ganacsigu xaaladiisu iska fiican tahay alaabtu waxay nooga timaadaa Soomaaliya qaybna waxay nooga timaadaa Nairobi way nooga timaadaa Kenya nooga timaadaa xaaladda magaalada amnigeeda iyo xaaladeeda aad u fiican tahay ganacsigu waxaan gadaa cosmetics kan gadaa alaabta shopping ka cosmetic kan u badnahay gadaa wallahi ganacsigu uu kala duwan yahay marba si weeye isbuuc hadda la soo dhaafay wuxuu ahaa iska aakhir mushaar baa hadda waxa weeye bishii baa dhamaatay dadka mushaaraadka soo qaatay waa haweenku iyo rag iyo noocyada kala duwan way adeeganayaan magacaygu waa Cabdifataax Sheekh Rashiid ku nool Doobley Soomaaliya marka maxaad ka shaqaysaa ganacsigaygu waxa waaye macmacaan iyo biibito iyo hawlahaas aan ku shaqsanahay marka alxamdulillah Doobley ku noolahay aad buu fiican tahay waa magaalada kulli aan islaanay Soomaaliya magaalada walooyinka ugu degan bay ku jirtaa ganacsiga magaalada Doobley guud ahaan intaad ka warhayso bal ka warbix ganacsiga magaaladu aad buu fiican yahay ganacsi isku area oo magaaladu maxaan ku raadaan ma jiro ganacsi degan oo wanaagsan oo fiican baa magaalada ka jira inta badan xuduudka Soomaaliya aan deganahay wixii Doobley waxa way Kenya u sii gudbinaa raashinka iyo alaabooyinka marka ganacsiga ganacsi degan oo wanaagsan way waxna Kenya ka hela waxna ka hela Soomaaliya isbuucan hadda u dambeeyay kulay ma jirin hada la kuureen ganacsi aad u socdo ma jirin in tareeyal soo raran jiray oo markuu hadda shirku furan yahay ganacsi fiican ba socon jiray hadda waa gaabad neec iyo waxa la soo rartaa hadda UD iyo waxyaabo noocaas ah jalaatadii shaahigi biyihi la qasay qudaarti waxaan isugu keenay midba wax kaaga soo baxeen marka ganacsiga Doobley aad u sii liitaa صاحب ganacsiga waa okay wax dhib ma jiro ganacsiga wuxuu u socdaa si fiican marka wixii kalena waa iska caadi magaalkana waa oojida saaxibkii ganacsiga xangada meeshan aan gadaa kale oojida waxaan gadaa marka wallahi ganacsigeeda ma xumo marba ganacsigu isku si uma socdo marna hoos buu dhici marna kor buu dhici kor buu socon laakiin hadda maalmahan ugu dambaysta ganacsigu sidiisii hore ma waxa ugu wacan hadda waagi bariyo wuxuu leeyahay weegeedu leeyahay subaxna muxuu haytay si fiican ba wax lagaaga iibsan subaxna muxuu haytay suuq laan baa jirta saa waxaan ka ahayn oo dhibaato ma qabnaa magaalada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ku tallaabsatay bilooyinkii ugu dambeeyay horumar kala duwan gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo bilicda magaalada kor u soo kacday maadaama ay tahay magaalada Doobley magaalo ku taalla xuduudda u dhaxaysa labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya isla markaasina ay magaaladu aad u koreyso Axmed Suldaan Shiine raadiyaha iyo TV-ga dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Doobley Jubbada